إلهي سبحانه وتعالى مركو تلمامي إلهي كالجين لعابده والدك الله إحسان فلا صلى يلا صلى يلا تذكير له سما فلي وحل وضرينه هي جارك كيس دو يا كيس دروكسن مدول بين الله صوفا marka ama shaqada jaarka kugula noqdo ama guriga jaarka kugula noqdo meeshu doono jaarka kugula noqdo jaarka in loo dadaalo waxaan wada garanaa xadiiskii saxiixeynka ku yaalay oo nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam jibriil kama zuulin inuu igala dardaarmo jaarka arrinkiisa ilaa yaan sidii war malabaaba la isdhaxli doonaa ee waa jaar oo dhan أحاديث بدن بان النبي كسكناتو دي جار كورميسا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره صحيح مسلم كوكيا لي أما خير الجيران عند الله خيرهم لجاره أدب المفرد شيخ الألباني الصحيحي أما من سعادة المرء الجار الصالح بالنبي كتلمامي أدب المفرد شيخ الألباني الصحيح كتلمامي نصوص تواتر بدن تجار كورميسا سعام وغورميسا مركا اعتماده جارك قالكا وحق لي حقوقه إن الله ظلمين أف يا أدن يا عرب يا إل يا مال يا مدنا بلغ ظلمين وحق لي هي waxyaabo badan oo diinta ay ka warramayso maadaama waqtigu uu yaryahay waxaan tilmaami doonaa xusnul jaarka ama jaar wanaagsanida waxaa ka mid ah kow waxa ugu weyn aad hayso aad diin inaad gaadhsiiso oo dee yahuudi lala dagaalamayay markaa dagaalku uu socday buu nebigu wuxuu ku yidhi dagaalkii khaybar markuu cali ciidamada madax uga dhigay lan yahdiya allahu bika rajulan waaxida hal qof dadku nabigu kala dardaarmay waa yahuudi muxaarab ah yahuudi kula dagaalansan ayuu nabigu wuxuu leeyahay hal mida in alla kuu hanuuniyo ayaa waxay kaaga khayr badan tahay gaal cascas dee yahuudiga kula jaarkaan kula dagaalamayn xaalkiisu markaa muxuu noqonayaa haddii yahuudigii dagaalamaya caynkaa la leeyahay kaan jaarkaaga ah xaalkiisu muxuu noqonayaa waxaan leenahay asliyan qofka muslimka ahi waa qofkaasi khayrka qaybinaya waxuu jaarku aada u samayn kartaa inaad sadaqa siiso hadduu faqiir yahay maaha zakadii zakada muslimkuunbaa la siiyaa laakiin sadaqada mutlaqa ah waa la siin karaa oo ilahi waa ka qur-aan ku tilmaamaya wayuطcimuuna الطacaama calaa xubihi miskiina wayatiima waasiira dadkii wanaagsanaa markii la tilmaamayay waxaa la yidhi cunay siiyaana way quudiyaan yaa la quudinayaa iyagoo cunada weliba jecel waxaan aada uga go-in isagoo ah ay waxay siinayaan baa la yidhi wayuطcimuuna الطacaama calaa xubihi miskiin iyo yatiim iyo asiir baa la yidhi asiirka ay aada u ka warramaysaa waa maxay waa gaal muxaarib oo lasoo qabtay ma aha asiir muslim oo meel sii joogay ma jiro oo nabigu calayhi salaatu wasalaam sidan daymanka dadka inta la qabto xabsiga la dhigo xabsigu dadka ku xidhi jiray ma jiro asiirka laga warramaya waxa weeyaan gaal dagaal la iskaga hor yimi oo dabeetana laga itaal batay oo la qabtay haddii gaal muxaarib oo asiir noqday طعامkii la siinayay ilaahay qur-aanka ku sheegay jaarkaaga gaalka ah طعaamkiisi waa ka awleysanya markaad maadaama uu xaqu jaarnimona leeyahay sadaqa markaa waa ku baxaysaa baynu leenahay waana kii qur-aanka ilaahay ku tilmaamayay subxaanaه wa tacaala asmaa bintu abi bakr markii hooyadeed oo mushrikadii bacda sulxi xudaybiya ay u timi ilaahay buu ka warramayo laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi اddiin ilahay leeyahay alla idinkama reebayo kuwa aan diinta idinkula diririn guryihiinana idinka saarin an tabaruhum watuqsituu ilayhim in allaha yuxibu lmuqsitiin inaad u samafashaan oo aada xidhiidhiso nebiguna markay u sheegtay xidhiidhi buu ku yidhi afaasiluha markay weydiisay su-aasha ah nebigu calayhi salaatu wasalaam xidhiidhi buu yidhi idan jaarku diin waa loo sheegayaa sadaqo iyo hadiyad iyo wax wanaagsan waa la siinayaa
mucaamalada caamka waa lala yeelanayaa waxaynu ognahay nebi maxamed ba inuu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam isagoo diriciisii dagaalku uu marhuun yahay cinda yahuudiyi idan hadduu jaar noqdona fa huwa awla mucaamalada ama tijaariga ama wax la isweydaarsanayo waa lala yeelanaya jaarnimadu waxay leedahay baynu leenahay markaa inaad jaarkaaga carabkaaga ku dhibin oo maagin oo wax ka sheegin waxay leedahay inaad isha ku dhibin ishu dee jaarka lama khaawiso khaawiso hadda soo mataqaaniin isagoo aan ku arkaynin inaad hablahooda ama guriga dadka jooga ama waxaasi aada meelaha ka egeegto laa yajuusu sharcan waxaa ka mid a inaan la dhegedhegaynin inaad dhigta u dhigin waxaa ka mid ah nebigu calayh isalaatu wasalaam dunuubta waaweyn waa kii ku tilmaamayay an tasniya bixaliilati jaarik jaarkaaga inaad ka sinaysato waxaa ka mid ah inaan gacan lagu dhibin idan dulmi dhammaantii oo dhan inaan jaarka loola imanin baa muhiima waxaa ka mid ah wixii cawradiisa in la asturo waxaan leenahay markaa xuquuqda waxyaabaha specifiga ah ee shareecadu ay reebtay qofka gaalka in loola yimaado unbaa hadhaya maalan sidii salaantii oo kale inaad kaga horeynin salaanta waa tii assalaamu calaykum ahaa tan faranjiga laakiin u malayn maayo inay dhib leedahay morning iyo kuwaas dee salaan ileen maaha iska warramadu ma filaya inay mashaakil ku jiro laakiin waa salaantii islaamiga ahayd ee assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu jaarku wuxuu xaq leeyahay haddii mayduu ka dhinto inaad tacsiyeyso laakiin tacsiyada lama socoto intii aada qofka muslimka ku odhan jirta ahaa maydkiina allah u naxariista iyo dembigiisa allah dhaafo taasi lama socoto laakiin adiga sabir ha lagu siiya iyo khulfi ha lagaa siiya iyo wanaag ha la helo dhib maaha jaarkaaga waad u ducayn kartaa laakiin hidaayo iyo waxyaabaha dunawiga haddaad ugu ducayso dhibi kuma jirto oo nabigu calayhi salaatu wasalaam abu hurayre hooyadii dee oo mushrikada waa kii u ducaynaya laa ilaahu hanuuni ama reer doos oo dhanba markay diinta soo geli waayeen qabiiladaasi ee loo yimee la yidhi nimankaas waa niman dhib badane waxaanu rabnaa in aada habaarto nabigu calayhi salaatu wasalaam ma habaarin allahuma hdi dowsan waatinii bihim buu yidhi ilaahow reer dows hanuuni oo ii keen markaa waxaan leenahay dacwo aada faafisana cidda ugu xaq mudan leh ee waa jaarka iyo dadka kan booyasadiina diinta ma u sheegtaan idinku isagoo ku shaqaysataan booyasada waxaa la yidhahdaa tan gurigeeda ka shaqaysta maxaa tidhahdaa antig okay antig waa af sawaaxili miyaa waa kelmad cusub aan bartay sawaaxiliga dhowr eray baan aqaanaa iminka okay antigaasi miyaa adeegsataa mise wax kale u sheegtaa ya waxay ahayd inaad diin u sheegtaan adeeg qura maaha nebigu calayhi salaatu wasalaam ilmihii yaraaye yahuudiga hayay u shaqaynayay muxuu ka yeelay markii la yidhi wuu xanuunsanaya inuu u tago oo diin uu u sheego oo aabihii yidhaahdo atic abalqaasim aw dabeetana islaamnimo ku dhinto oo uu nebigu ilaahay ku mahadiyo inuu ilaahay kaa naar ka badbaadiyey idan waxaan kusoo koobaya maadaama waktiga wadaadku xadiday yar yahay nusuusta caamka ah ee jaar ka warramayso oo dhan waxyaabaha yar ee nusuusta sharciga reebtay mooyaane jaarku uu soo gelaya sawaan kaana kaafiran aw musliman midku doonaba ha ahaadee xuquuqdaasi dheeraadka ee gaalka kaa fogna aanu lahaynna wuu kugu leeyahay ee ah xusnuljawaar dhammaantii waxaan ku gebagabaynayaa waxaad safiir ka tahay dadka muslimiinta ah dadku qalbigaaga waxa ku jira ma oga laakiin dhaqankaaga ay ama ku islaamayaan ama ku didayaan dadka saad ula dhaqanto ayama islaamnimada ku soo jiidaysa ama didinaysa idan jaarkaaga haddii aanad dhibin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi jannada ma galo qofka aanu ka nabadgelin jaarkiisu bawaa'iqdiisa xadiidkii muslim qofka aan wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min xadiidkii kale bukhaari waa kee bay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo kaasi jabiye waa ka aanu jaarkiisu dhibtiisa ka nabadgelin buu yidhi idan waxaan leenahay jaarku
ama gaal hada ama muslim hada dhibtaada horta waynu ka nabad galaa وظلم الناس ما بنانا خالق الناس بخلق حسن halkan baynoo taala hadduu jaarnimo markaa helayna xuquuqdii jaarnimada ee dheeraadka ahaa ee uu samafalka ahaa buu leeyahay waqtigiina mala 30 sekad ma dhaafay halkaa ku joojiyo